marweyn iyo mudanayaal kusoo dhawaada barnaamijkan cusub aan ugu talagalnay xuska sayniska iyo teknolojiyadda. barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa hadduu ilaahay idmo cilmi faafinta. cilmi faafinta waa qayb kamid a cilmi baarista aan ka wadno xarunta cilmi baarista Djibouti. waa run oo natiijooyinkan ka gaarnay cilmi baarista waxaan kusoo bandhignaa kulamo cilmiyeed ama buugaag cilmiyeed baan kusoo bandhignaa oo caalamka aan usoo bandhigno. laakiin waxaa dhanka kale iyadna muhiim ah inaan gaarsiino ummadeena dadweynaheena cilmi baarista aan wadno iyo natiijooyinkan ka gaarnay. waxaa kaloo iyadna aada annaka noogu wanaagsan ama dardarna gelinaysa in aan isku dayno inaan la qaybsano ummadda reer Djibouti farxadda ka dhalata fahamka dunida aan ku noolnahay, dunida casriga, dunida isgaarsiinta, kombiyuuteraadka iyo teknolojiyadaba. markaasi taxanahani xuska sayniska iyo teknolojiyadda waxaan uga dan leenahay in aan ummadeena ku abuurno dhaqan cilmiyeed iyo dhanka teknolojiyadaba ah. marka barnaamijkani wuxuu ku wajahan yahay ummadda reer Djibouti iyo wixii af Soomaali ku hadlaba, hadday noqoto arday, macallimiin, waalido, shaqaale dawladeed iyo cid kastoo dananaysaba teknolojiyadda iyo sayniska. taxanahani xuska sayniska iyo teknolojiyadda waxaan kaga hadli doonaa arrimo badan oo kamid yihiin computerka, softwarada kala duwan, ereybixinta teknolojiyadda ka hadli doonaa mararka qaarkood, databaseka ka hadli doonaa si loo suubinay loo sameynayay iyo waxay la halmaale teknolojiyadda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda casriga. barnaamijka koowaad waxaan maanta ugu talagalnay inaan isoo bandhigno marweyn iyo mudanayaal computerka. computerku muxuu yahay? computerku muxuuse ka kooban yahay? barnaamijyada baan kaga sheekeyn doonaa si uu shaqeeya, laakiin maanta waxaan doonaa inaan isoo bandhigno imse qaybood buu ka kooban yahay, qaybahaasna maxay kala yihiin, maxay shaqo qabtaan. waddankeena Djibouti haddaan ka hadlo, computerku aada buu ugu faafay sanadadan dambe, si xoog loogu faafay. faafintan waxaad moogtahay u sabab ahayd dhowr arrimood oo ay kamid yihiin dadaal ay dawladdu gashay inay gaarsiiso teknolojiyadda ugu tala gashay ummadeeda. dadaalkaasoo moogtahay ku muujisay inay dhinto cashuurihii ay ka qaadaysay maxay ahayday soo dejinta ama iibka computerada. cashuurahaasoo boqolkiiba 3 markii hore oo boqolkiiba 8 markii dambe laga dhigay ayaa keentay inay qiimihii computerada hoos aada ugu dhacaan. sababta labaad ee keentay faafintan computerada ku faafeen oo waddanka reer Djibouti waxa weeyaan jaamacaddii Djibouti la abuuray oo iyadna arday badan oo jaamacadda ku biirtay iyaguna guryahooda uga baahnaadeen inay computer dhigtaan si ay ugu shaqayn karaan. saddexaadna shirkadda isgaarsiinta Djibouti Telecom oo iyadna naaqustay qiimihii DSL ama isgaarsiinta moogtahay internetka oo iyadna keentay inay qoysaskii awoodi karaan inay ubadkooda usoo iibshaan computero cashir kala socon karaan ama internetka ka gali karaan oo macluumaadada imtixaanadooda ka eegan karaan. marka arrimahaas dhowrka iyo kuwo kaleba ayaa sababay inay computerada Djibouti aada ugu faafaan oo maanta computerada xafiis wala dawladdu leedahay waa laga arkaya. computerkii waxaa laga arkayaa dugsiyada, iskoolada, kuwa dhexe, kuwa sare iyo kuwa hooseba Djibouti weeyaan computerada way yaalaan. waxaa kaloo laga arkaa dhulkan computerada laga gato internetka ee cyber cafe la yidhaahdo ama internet cafe loo kale loo yaqaan kalbasay dhulkiin. marka ordinary computerkaas meel kasoo joogaa. haddaba su-aashan maanta inaan ka jawaabno isku dayna hadduu ilaahay aadmo waxa weeyaan bal computerkan maanta muxuu ka kooban yahay, mise qaybood buu si yahay, muxuuse ka kooban yahay? si aan su-aashaas uga jawaabnana dadweynuhu waxaan isku dayanaa inaan computerkii ku dul foorsano oon hoos u fiirino oon eegno. computerada waxaa kamid ah computeradani oo ah computerada lagu talagalay cilmi baarista iyo shirkadaha waaweyn. marka waa computerada culus, shaqo badan, degdeg dhaqso badan, kaydin badan oo loogu talagalay howlaha waaweynna lagu fuliyo. howlaha waaweyn computerada yaryar ka rilaayihiin iyo kaa dhaqso u karaya waayo waqti badan bay ka qaadaysa computerka yar si howlaha qaarkood u fuliyo. markaa servera leera marka computer kula kulmi doontiin ma aha xafiisyada dawladda ee dhulka internet kafeyaasha, laakiin computerada caadiga aad kula kulantiin waa nitusi doonaa oo nisoo bandhigi doonaa qaybaha ka kooban yihiin. marka madana waa ka computerku sida badi lagu arko ee xafiisyada dawladda laga arko ee moogtahay dhulka internet kafeyaasha kasoo baxaan. marka dhowr qaybood buu ka kooban yahay. qaybta koobaad waxa weeyaan khafiskan madow ama nishqad kaleba, laakiin khafiskan oo moogtahay inta central afriska lagu yidhaahdo oo loogu talagalay qafiska ordinateerka iyo screenkii meesha laga arkayay, meesha taabka laga garaacayay, mousekii iyo maqashiyaashii codka laga maqlayay. barnaamijkeena koobaad waxaan isku dayanaa ordinateerka qaybtan moogtahay khafiskan waxay ku dhex jiray qaybta qaybood ka kooban yahay inaan ini macneyno ina sheegno.
سادراتد قفز كان أفرنا وناجي نبيسا مركاسي قيمك الدوية قيم أنت قيمك الكوبية أقوال وحبيحان بنص صارنا نكرة تجدون لكن ممكن واحد نسبة تسياهم لوكي كويا أنت قيمك لوكي كويا يا راسل أرتين مركا قيب ثاني حكا بدك كسر بحاجان وحوي قيبته أو القيب سجى أما تمرت قيبسا ومادام كوراكي دبك سيني كمبيوتر روحان كجليه كوراك أسمع قيبته لو بدشة وقدر تا كورانا خفيفة أو قيبة كده كمبيوتر كوش غير كلام مركا حكا كسر بحاجي وحكا لو تلاقي إني أود أو قيبشان قيبة كده دوبل الكمبيوتر هاكو واحد كده في تقييم مهمة ولا هذا موت الديسكتير أما موت هارد درايف لا ولا قلت لك لنا كيدي سوا كيدين تجود ويان وحالي معلومات كمبيوتر كويتشلي هذا تاع فيلمات صوروا محاي هذا برنامجيو حاجة كويتشلا قايت لك كيدي سوا أساس هذا درون تدرون الدكتور يجوا قايتنا السيدياش قايت آخر سنة وحكلوا كم وقت قايت ثاني دمبل موت هاي كارتين محاي هذا كل شيء سن خفيسكا ولا هذا هو هذا كمبيوتر كان هذا وحوالي إذا وحي هالبول الكمبيوتر كل شغال يلا هيسا مركز تمرت حاجة قاطو تمرت حاجة قاطو حاجة أنا تمرتو كانية مركز تمرت حاجة قاطو يلا يا حسابنا يسوي هذا كروتا marka xaggan waxaan hor yaalla waxa weeyaan dhowrkii qaybood oo ka koobnaa computerku dhowrka qayboodna faahfaahin iyo macno ka gaar ka jeedin doona xaggan marka u horeysan ku bilaabayna waxa weeyaan tamarta qaybisa ama